wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay wadiin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa kamid ah kulan arbaabadu u xiran yihiin oo xasaasi ah oo madaxweyne Farmaajo la yeeshay beelaha qaar gaar ahaan beelaha Hawiye iyo sidoo kale beesha degta gobolka Gedo. kulankaasi ayuu madaxweyne Farmaajo laba waqti la kala yeeshay. kulamadan oo madaxweynuhu oo kala hadlayay in taageero la siiyo iyo sidoo kale beesha degta gobolka Gedo oo madaxweynuhu si qaas ah uga hadlay qoraasta laga soo saaray goboladaasi iyagoona ballanqaad xooggan siiyay madaxweyne Farmaajo. dhinaca kale kulankan ayaa waxaa looga hadlay arrimo kale oo xasaasi ah sidoo kale madaxweyne Farmaajo kala hadlay beelaha Hawiye shirkaasi oo shaki badan dhaliyay sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo cabsi aad ah ka dareemay isagoo dareemaya haddii madaxweyne Farmaajo uu la kulmay beelaha Hawiye inay dhibaato weyn soo wajihi karto. kulamadan oo madaxweyne Farmaajo la yeelanayo beelahani ayaa imaanaya xilli dalku uu galayo doorasho. sidoo kale madaxweynaha ayaa beesha degta gobolka Hiiraan dhawaan la kulmi doono iyadoo fil Soomaaliya ay isu diyaarinayso martiqaadka beelahaasi. dhinaca kale shirqoolka loo dhigay Axmed Madoobe iyo Dani oo taageero xooggan siinaya doonayana inuu Axmed Madoobe badbaadiyo xilli xaalad gale oo galay Axmed Madoobe kadib markii ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen magaalada Bu'aale ee xarunta Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa ka cabsi qaba haddii si toos ah dawladdu ula wareegto magaalada Bu'aale inay dhisa doonaan maamul cusub. maxayse ka damacsan tahay fil Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo u horeeya maxay tahay qorshaha uga degan ciidamada hadda qabsaday magaalada Bu'aale ma dawlad cusub ayay dhisi doonaan mase Axmed Madoobe ayay la wada xaajoon doonaan. barnaamijkeena ayaan ku qaada dhigi doonaa. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa inuu hadda ka soo dego airport-ka magaalada Muqdisho iyadoo sida warbixinu sheegayaan lacag aad u badan oo wado uu taageeraya waa kuwa musharaxa oo lacagtaasi oo dhan ku farqi doono si uu siyaasadda u soo geliyo. warbixin ayaan iyana idinkaga hina. dhinaca kale deegaanada Somaliland iyo xaaladda siyaasadeed halka ay marayso Muuse Biixi oo doonaya inuu markale soo laabto isagoona ku hungoobay qorshihiisii ahaa inuu dhowr sano ku darsado. muxuu yahay qorshaha mucaaradka Somaliland iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro oo taageero ka helaya madaxweyne Farmaajo doonayana sanadkan inuu soo laabto. faa'iidada ugu jirto madaxweyne Farmaajo haddii uu soo laabto Cabdiraxmaan Ciro maxay tahay warbixinteena ayaan ku eegi doonaa. qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markooda soo booqato channelkeena subscribe oo fara gambalelka si aad noqdo daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. aan ku bilaabay madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la yeeshay beelaha Hawiye oo dega bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. kulanka madaxweyne Farmaajo ee beelahan ayaa imaanaya xilli uu khilaaf adag kala dhaxeeyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo isku haysta arrimaha doorashooyinka dalka iyo arrimo kale oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin in ra'iisul wasaare Roble loo haysto xatooyo xoolo dadweyne iyo sidoo kale inuu xogta qaranka u gacan geliyay dowladda shisheeye. kulanka madaxweynaha iyo beeshan Hawiye ayaa imaanaya xilli dalka uu galayo doorasho. beeshan ayaa madaxweyne Farmaajo ballan qaaday garab istaag iyo sidoo kale in mar dambe loo laaban doonin qorshihii khaladkii hore ay sameeyeen mucaaradka oo ahaa in magaalada Muqdisho la geliyay qalalaaso iyo dhibaato. beeshu waxay madaxweyne Farmaajo ka raali gelisay qaladaadka ay kula kaceen siyaasiyiintooda sidoo kalena waxay u sheegeen in mar dambe loo laaban doonin in magaalada Muqdisho ay qalalaaso ka geystaan ciidan sheeganaya magaca beesha. waxa ayna beeshu sheegtay in ra'iisul wasaare Roble ay dhankiisa la hadli doonaan si dalka qalalaasi iyo dhibaato looga badbaadiyo maadaama wararku ay sheegayaan in Roble uu qarash ku soo qaatay inuu dumiyo dalka isagoona isticmaalaya dhalinyaro ka mid ah ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya uu adeegsanayo qaab qabiil. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo beesha Hawiye ayaa ka soo baxay qodobo aad muhiim u ah kuwaasi oo beeshu sheegtay in madaxweyne Farmaajo taageerayso haddana aynan diyaar u ahayn in dalka ay geliyaan qalalaasi iyo dhibaato isla markaana ay doonayaan in dhulkoodu uu noqdo mid nabdoon oo aan ummad lagu dulmin. beelahan ayaa sidoo kale madaxweynaha kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale soo saarista xildhibaanada waxayna madaxweyne Farmaajo ballan qaadeen inay ka taageeri doonaan sidii ugu soo laaban lahaa maadaama uu yahay madaxweyne dalku u baahan yahay wax qabad badan oo soo qabtay ummadda Soomaaliyeed. dhinaca kale madaxweynaha ayaa sidoo kale la kulmay beesha degta gobolka Gedo oo hadda kuraastooda ay ku loolamayaan madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe. kulanka beeshan ayuu madaxweynuhu
kala hadlay xaaladda gobolka iyo sidoo kale marxaladihii kala dambeeyey ee soo maray oo ka mid ahaa dagaalkii cabdirashiid janan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Kenya. beeshu waxay madaxweynaha ugu warbixiyeen xaaladihii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka iyo sidoo kale sida dowladdu ay heegan ugu jirto in ciidamadeedu ay gobolka difaacaan. madaxweyne Farmaajo waxay beeshu u ballan qaaday kuraasta ka soo baxaya deegaanadaasi in uu isagu ku tashto oo cod uu isagu ku tashanayo uu noqdo. madaxweynaha ayaa beelaha la kulmayay baryahan dambaba isagoona sidoo kale la heshiiyey xubnihii mucaaradka horboodi jiray ee hubeysnaa ay isugu jiraan Ahlu Sunna, Indha Cadde, Saadiq John iyo kuwo kale oo aad u fara badan. madaxweynaha ayaa doorkan ciyaaraya siyaasadda aan caadi ahayn, waxaana wararku sheegayaan in asbuucan gudihiisa odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay la kulmi doonaan madaxweyne Farmaajo isagoona kala hadli doona arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka oo aad u kacsaneyd maadaama hadda ay soo baxeen maleeshiya beeladyo doonaya inay carqaladeeyaan arrimaha doorashooyinka ee ka soconaya gobolka Hiiraan. dhinaca kalena Axmed Madoobe ayaa kaalmo weydiisanaya Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii cabsi aad u xoogan ay soo wajahday maadaama shalay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay qabsadeen magaalada xarunta u ah Jubbaland ee Bu'aale isla markaana ay gacan ku haynta si toos ah ula wareegaan. qorshaha dowladda ayaa ah sida wararku sheegayaan inay maamul cusub ka dhisi doonaan, balse lama xaqiijin in Axmed Madoobe ay ka tilaabsan doonaan iyo inay u mari karaan iyo in kale. madaxweyne Farmaajo isagoo dalka doorasho u dareerayo ayuu haddana u shaqeynayaa si nin xukunka sii joogi doono oo kale, taasoo caddeynaysa kalsoonida uu ku qabo soo laabashadiisa iyo sidoo kale sifooyinka lagu yaqaano hogaamiyaha daacadda ah maadaama kaliya markii uu tartamayo uusan shaqeynin. dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa cabsidan ay soo wajahday kadib markii Bu'aale la qabsaday, waxaana ka cabsi qabaa in madaxweyne Farmaajo uu madaxtooyo ka samaysto Bu'aale sidoo kalena uu keensado madaxweyne isaga taabacsan. taa haddii ay dhacdana waxaa qalqal gelaya Puntland iyo Somaliland maadaama Jubbaland ay gacanteeda inta badan ku jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya u hogaamiyay madaxweyne Farmaajo. wararka qaar waxay sheegayaan in Bu'aale meel aan ka fogeyn oo la yiraahdo loo yaalay in ciidamo uu geeyay Axmed Madoobe si ay u dagaalamaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse lama hubo in arrintan ay ku dhamaan doonto wada hadal iyo sidoo kale in la isfarasaari doono maadaama ciidamada dowladdu ay baacsanayaan haraadiga ururka Al-Shabaab ee laga qabsaday magaalada Bu'aale oo ay muddo 12 sano ah gacanta ku hayeen. dhinaca kale waa sidee xaaladda siyaasadeed ee maamulada Somaliland iyo marxaladaha hadda marayaan arrimaha doorashooyinka. Muuse Biixi oo wajahaya cadaadis aad u xoogan kadib markii mucaaradka qaar ay sheegeen haddii uusan doorashada qaban inay iyagu doorasho kala qabsan doonaan. warbixinada qaar waxay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay kaalmeynayso musharax Cabdiraxmaan Ciro oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani. ujeedka ayaana la sheegay inay yihiin laba siyaasi oo isu afkaar dhow. madaxweyne Farmaajo ayaana qorsheynaya haddii uu soo laabto inuu soo gabagabeeyo awoodda maamulada maadaama uu Jubbaland hadda gacanta ku dhigay, sidoo kalena qayb ka mid ah Puntland oo hadda maamulayo xildhibaanadeedana ku tashanayo maamulka u haray kaliya wuxuu noqonayaa Somaliland. maxay noqon kartaa haddii Cabdiraxmaan Ciro guuleysto madaxweyne Farmaajona soo laabto? waxaa dhawaanaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. commentiga inoogu reeb. haddaba halkaa waxaa inooga wararkeena subaxnimo fadlan daawada haddii ay tahay markooda soo booqto channelkeena subscribe oo faragan bilalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.